caalamka maanta oo kale waxaa si weyn loogu xusaa maalinta afka hooyo ee Soomaaliya oo ah maalin dadka lagu dhiirigeliyo in afkooda hooyo iyo dhaqankooda ay horumariyaan. Munaasabad lagu maamuusayay qiimaha bulshada Soomaaliyeed uu leeyahay afka hooyo ee Soomaaliya waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyo marsharaf kala duwan oo munaasabadda ka qayb galay. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo munaasabadda hadal ka jeediyay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda afka Soomaaliyeed uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed. inuu farantiga ka hor u socdo waa hadda meesha af Soomaali looga shaqeeyo oo Soomaali ka baxsan waa ismaamulka Soomaalida galbeed ee Itoobiya. af Soomaali xisada looga shaqeeyaa afkaas taqaani marka waa afkii wuxuu noqday af kobcayo waxayna dadkiisu noqon annaga duruuf kale loo diiday inaan waxayno insha Allah taasna waa laga baxaya xukuumad ahaan waxaan kul dhow dargal gelinaynaa inaan shaqaalaha dawladda qoraalada ka shaqeeyo aan bal si gaar u tababar si muxuu ahaa documentska dawladda ee af Soomaaliga lagu qoraayo Soomaaligiisu qurxanaa kol dhow dadaalkaasna waa wadnaa jaamacadan hawshaas isla wadnay iyo akademiyada waan rabno inay hormuud ka ahaato marka mar hadda intaas niraano maantay waa maalin xusid mudan waxaan bogaadinayaa akademiyada inay mar walba aysan wajigeena isan ka baaqanin ka maqnaanin maalinta inta marka iraado waxaan rabaa mar labaad inaan u mahad celiyo walaalkay Bayle oo runtii asoo matalayo golaha wasiirada intooda kale maantay xoojiyay culayska ay leedahayna ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto muujiyay waxaan u mahad celinayaa wasiirada dowlad goboleedyada maantay u soo safray soo jiraalay inay maantay hawshan ay dhexda ka taagnaadaan marka labaadna waxaan rajaynaynaa inay meelaha ay joogaan nin walba maamul goboleedkiisa maalintan oo kale oo ka xuso. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed maadaama si weyn loo xusay afka hooyo ee Soomaaliya. warnay faasaan oo maxaa jeedta loogu daray baa ku wareeg qaraar baa laga gaaray leeyahay asaas loo qoriya from now on and that's it qof walba saas la islo jamaa marka waxaynu riyada u baahanay waxa weeye maaxow in afkan laga shaqeeyo inuu baahno la isku yimaado waana kugu raacsanahay afafka dadka ka shaqeeya la mideeyo waana saas ay leedahay wasiir saas ay leedahay dadkii waxaad ka shaqeeyay oo meel isugu yimaadaan meel kale ka hawl galaan luqadu la tagi ee imka night ka soo qaad night ereyga night GST baa hoos ugu jira nagta dhexe waa Soomaali Soomaa nagta dhexe waa Soomaali waa habeen nightna waa habeen Soomaali gaar ay ha boqol kelmadood oo afkeena ah oo meel kale ku xusan oo origin-ku afka Soomaaliga boqol kelmadood haddana ka badnay ya tanaba lug waana leg kana waa lug waana leg Soomaa ya la toba laabtay laabtay ya يعني واحد كده يا اوكي ال صوت اللي ما ال فرنسيسكا اوي بالايا ايش قريب ايش اخي ما كنا فرنسيسكا ال ام بقول اوي ايش قريب هذا ترى اخي ايش حدي يا ال ام بقول وال يا وحياله فربدان او سداسا إنه وحنا في ناس Soomaaliya maanta joogno waxa la afino waxba ka iman karaan malaha laakiin milyan Soomaaliyeed jago dadku isku mid u baahay Soomaa marka afkeenu waa qani weeye laakiin hadan ka shaqay weyno qof sidii doonu bisoo qori sanad walba marka la gaaro waxaa si loogu xusaa caalamka Soomaaliya maalinta afka hooyo ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Waabari, Bulsho TV, Muqdisho. ma
og tahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxa ka mid ah Afrika Asia qaybo ka mid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in leeg kadib kubaadh frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicwicin dhiishka kubaadh frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin